ولا قبا كرا عادي لو قبا كرا لما قبل مرحومك والد لي ودنتي واركع عادي واركع وخ ماشي كدع وا فيرسنا ninka maxaa u xiri weyseen kadib markaan maxaan xiraa markaad in wax soo dilay ma ii sheegin ba wiilka dhar cadka ah oo baabuurta ay baadka gelinay ayaa qaaday ma dhagaagada ku dhaqa taylor baa ku dhax taylor ma dhihin qadar baa ku dhax labadaan ma dhihin qofkii yahay labadan laakiin inay dhihin ma dhihin labadaan oo baxsashada meesha ka baxay oo shabaab as dhaxmaray nafteeda eed ma uu jirto waa Dablanisa Maxamed Xuseen Hiraabe oo lagu naanayso Magaradaw kana howlgelayay bar control oo Sebiana ku taala waana gacanta loo haysto inay fulisay dilkan habeenkan oo ku taariikhaysan 22kii bishii afraad ee sanadkan doorkiisu waxa uu ku ekaa hubinta mootooyinka halka qaybta baarista gawaaridana ay joogeen Dabla Bool Maxamed Nuur Cabdi Taylor iyo Dablanisa Faarax Qadar Maxamed marxuum Axmed Maxamed Macallin oo waday bajaaj qof rakaab ii saarnaa kana yimid dhankees gooska X control afgooy ayaa istaagay halkii uu shaqada ka hayay eedeysana Magaradaw si uu u maro nidaamka hubinta waxaana la faray inuu shidonalka dhexe balse cilad jirtay awgeed uma daarmin Magaradaw oo dulqaadka ku yaraa ayaana ka qaaday furaha mootada muran kadibna waxaa xigtay in marxuumku uu ku dhuftay 2 baalooto oo uu ka riday qori AK47 ah taasi oo marxuumka ka haleeshay fiiraha una geeriyooday eedeysanaha oo dilka kadib baxsaday ayaa iibsaday qorigii qaranku lahaa oo jidmar uu ka sii dhigtay waxaana afgooye meel u dhow oo kula kulmay qolo geeley ah oo ku wajahneed gobolka Baay kuwaas ayuuna la qumiyay geela ilaa uu lug kula tagay Baydhabo oo qorshihiisu ahayd inuu uga dhuunto cadaaladda balse hay'adaha ammaanka oo ku raad joogay ayaa halkaas ka soo qabtay dad wax u dhacay baaritaan ahay mafan baaritaanka anoo haayo mootooyinka markii wadada jaam noqoto leer ba kugu shidaya meeshii rooba dhiiga ku dhax jira mafan xilligan istaagay oo mootooyinka hoon isla wada sideen darbiyaha soo qabsana noofur wadada oo gaylid bila aan ka istaagay ahbadaha iga fakada aniga maan ogeyn qorigayna ahbadaas ku jirto maqaasa banaadirkii maadaasho shaqada la wareega liiray 6 saac ku dhacday shaqada noo soo fuulo 10 daqiiqo aan saarnayna iskaadna dhac qofkan oo xabada ku dhacayso ka hor maxaa isdhahdeen wax aan dhahmaray oo muruga ma jirin maya leerkaada shido waa haleysan yahay oo furahaada dhay furiisa gacanta ka saaray markii aan istaagta aan maagan hadin oo yiri furay hada isii wadada ay xirnaanayso ayaha ku xirnaataan dhaniyo aniga aan ku qaado wax ku xirnaato wadada istaagti aan istaagay ahbada iga fakada hadii aan qof tooginayo qorisaas waa aan ku dilay arkana ana dambiila qaldan hada furi marka furi waa ka qaadatay ma waasi waa u eli marka taagnaha badan inta kuna furiis gacanta ka saar hal qof aan mootada la saarnaanin qof kale lama saarnayn ninkaas aan niman hataa ii sheegnay ninka bada kaaga dhacday muuqaalka aan daawanay ayuu ka muuqdaa qofka maraga ahay waa joogi macnaha aniga aan mootada saarnay aniga si mootada markii anka soo laabtay taylor saakada nin bada iga fakatay aan dhay oo hadii bada qof ku dhicin laawo yiri mootooyinka aan soo laabtay hataa mootada dhax saarnay ninka ina isu hayata laakiin xaqiijii karaan laakiin nina fanaanigeedu wato gadaal saar laakiin ninkan ahay ma dhigi karaan dood marka hore inta ka bilaabatay si mootada leerka sida dhahay anaa toosh hayb anaa ku ifina hadii leerka ka go'on yahay mootada inta geeso ma geesinayo wiri wadada ay xirnaanayso ay hada geesinina ku xirnaataan dhahay furaha aad qabsada urdi kartaan orod kaamara ku sheegay furaha marka hore ma ka qaad marka hore waa u weli qabsada furaha hada adiga orod rabti orodaan dhahay kaamara ku heedan laakiin waa ka istaaga dhaasay hadii wadada ku xirnaan anoo istaagta aan maagay qoriga dadkan waa ogeyn qoriga inaa degleen baan degta ewerkayta xilliga ugu xirnaa qori afkiisa soo qabtay shukurkii qabsa aan maagay degta gooda farteebka fartiga markaas kadib aan ku warhelina ninka bad ku taalo ninkaas la ii sheegay adiga iyo Taylor maxaa isku sheegaysiin marka ani Taylor bada iga fakatay isdeen ayay hadii qof ku dhicin habad waa la helay shaqada ku laabo mootooyinka waa gacanka laga soo qaylan ku laabo markaan soo laabtay ninka bada ku dhacday ninkan dhax laakiin furaha ku tuurtay ku dhufteen dhaxday aniga taas ilaahay og sidee u baxsatay marka aan baa aan bini aadin ahay nafa leeyahay waxa dhacayna waa qof bini aadin ana amale wax ku dhacay markii aan soo istaagay oo ninka bada ku taal ninkan iiray laabtay qoriga qasnad waxaan ka jaray qasnad nin Taylor marka hadii qof ku dheen markuu soo dhaay waay markaas nin meeshu taagnaan hebel aan dhihi karin aan ogeyn hadii qofkii yahay aan xaqiijin karna ay ma dhaqaaqtid ma dhaqaaqdeeda ku dhaqaa Taylor ba ku dhax Taylor ma dhihin Taylor qadar ba ku dhax labadaan ma dhihin qofkii yahay labadaan laakiin inay dhihin ma dhihin labadaan ma dhihin laakiin qof meesha kool beerjay dad badan ku jira ninkii yahay ani ma aqaan in shacab yahay iyo askari yahay ma aqaan laakiin dhagtay waa ku dhacday أنا أنتي دكتور كل هذا مسكها هذا نقاط تسمى أساسا هو جرا
سيكون بحد مرك إلا لقط safarka dhiigaa jirta xilliga dhiigadaan bax أيه oo roobka daay mootana mus on nimanka sheegaya oo minaa suuga shabaab lama dhahmari karo eed iga dhiga heeralaaliyaha shabaabta xilligan wadadaas ma joogo ayada laamiga aad marka shabaab hadda markii darad soo qabanay shabaab la shaqeynaysa igu eeday oo horeeyna dad u dishay diya laga dhiyuri maxkamadan marka hadda ma imaan horeyn wada maxkamad waa jirtay meesha dad aan ku dilay horeey dadka diya iga dhiban musa sheegay mana intaas taa iga la gaaray mana oo awiidis iyo qasab waxaan ku dhahay siyaaku baxday wadada sa ku martay nasho faasi wadada geela qomay geelay guureysa raac oo xilligaas dhaweydaan iyo dhiigadaan ka baxayaan oo dhul deegaanka kale aaday marka geelaas si aaway meeshaas ku tagaaday iyo ka raacay miya Taylor iyo Faarax ayaana saaxiibkood magarada uu ku caawiyay inuu ka baxsado gacanta sharciga waxaana u sii dheer inaysan wax gargaar ah u fidin marxuumka waana sababta maanta ay halkan u joogaan labaduba madaxaan kor u soo qaado wax ay hadda buuq iyo wax qayliye midna iyo wax aadaara midna ma ana maqal markaan maqal shaqadii ku laabtay gaariga markaan fasaxay koolbawardiyaha xaqiisa soo aaday ninkaana koolbawardiyaha marshabiyeedka igu yimid wuxuu yiri adeer xabada iga fakaday saddex baalta iga dhacday war waxaan ama dad ku dhaceen ma yowdha ku laabaan shaqada saaxiibo gacanka caawda waa laga qaliya waa maqlay kamera ka qaliyay dayda mootooyinka baaritaanka ma fiicna mootooyinka si fiican uga baar meesha markuu uga aaday ayaa waxaan maqlay anoo gaari kale soo istaagay albaabkiisa hor furaayo aan waxaan maqlay nin mootada ninka la saarnaa dhahaya oo hadda waa la heli karaa umaleeyaa dhahaya ninka xabada ku taalo marka Faaraxa iga horma ninka dhaawac ahay ninkaanuna markaas laamiga gooyay xabada ku taal ee yeeray wuxuu sii maraya sandaqada xageeda ninkii dhaawacay gargaar caafimaadna waa u fidinay nin la yiraahdo dhar cadda oo la yiraahdo Cabdirsaaq aan mooto kale la saarnay mooto la saar waxaan saaxiibo laba askari hadda wadada ku joognaa gaadidka baarayno nin adaa dhar cada qaad ninka dhaawaca isaal kalkal geey isaal kalkaas loogu qaaday dibna waxaa noogu soo laabtay ninka dhacadka ah soo ninkii istaalku nafbax waxna ka ogaan ninka maxaa u xiri weysay kadib markaan maxaan xiraa markaad in wax soo dilay ma ii sheegin ba kitaab jaan way mari kartaa taa wax uu ii sheeg in wax soo dilay ma jiraan kugu soo naqana idib saaxiibka u dhib Faarax eeda saaxiibka loo istaa lagu haystaa Taylor kale hortaada waxa lagu dilay qof muwaadinka lama caawinin askariga dirimaadan xirina oo joog ma dhihina horu socda dhahdin saas la idin haysaa gudoomiye si ninkaan sheegay aniga ninkaan baaburan wada baarayn ninkaan mootooyin u baaray haddii aan ninkaan baabuurta wada baaray ninkaan mootooyinka baaray laba shaqan kala ahayn waa isku shaqo laakiin laba meelood baabuurta iyo mootooyinka kala baarayn aniga ninkaan baaburan baaraynay baabuur baan soo baaray baabuurka markaan soo baaray aniga waxaan galay koolbawaardiya aan gala ninkaana baabuurku ag taagnaa markaa iyada Taylor ninkaan shaqadiisu haystay markaan koolbawaardiyaysa u gala waxaan maqlay xabado laba xabadood oo meesha mootooyinka lagu baaraya ka dhacay wax qayla maana maqal wax aan taahay aadaar midna maana maqal ninkaan inta soo ordo soo booday durbadiyo muusa dhihin baa xabad iga dhaceen wax yar ka bacay markaan meesha fadhiyay aan waxaan maqlay nin shacab oo mootada dib ka saarnaa oo le war ninka xabadaa ku yaala waan soo kacay ninkii mootaalaha baan u tagay mootada meesha taalaan tagay waxaan arkay ninkaanan saa u fiirshay dhiig yaro meeshaan ka socdaan arkay marka saana war run ninkaan cunug dhar cadkaan ku leeyahay ninkaan mootadan wiilka wada xabadaa ku yaalee wadadan ka reen xagga aan geyn ninkaan aniga ma aan arag marka aan mootada u tagayo inuu xagga iga soo daba maray oo intuu mootada dhanka soo daba maray in ba sheegi karaa laba indhood maana saarin ka bacdi aniga iyo wiilka dhar cadkaa mootadeen xagga u riixnay mooto kalaan soo qabanay marxuumkii aan saarnay oo marka aan naftu ka bixin oo dhaawaca waxaan ku niri maadaama oo aniga ninkaan kaliya meeshii mas'uuliyadeeda saaran tahay kama tagi karno ninkaan qaad waxaan ku raaday waxaad geysaa istaalka gee ninka sidii uu ku qaada annagina meeshaan ku soo harnay oo meeshiiba waxa ku soo haray iga qaada ninka wiilka dhar cadka ah oo baabuurta ay baadka gelinayay ayaa qaaday nin ciidan ha qaada ninka nin ciidan qaano askari ah hadda waa loo yeeri karaa oo marxaati ka ah wixii meesha ka dhacay saas ku qaaday marka midna gudoomiye horta ninkii xabadu ku dhaceen gargaar caafimaad waa u fidinay waxa weeye inaan u fidinayna marxaatigeedii iyo cadaynteedii waa la keeni karaa hadda waa keeni karnaa haddii loo baahdo waxa kale ninkaan anigu meel ka baxay ma sheegi karo maba aragba laba indhood inuu soo daba maray aan ba sheegi kara markaan xabadaha u daba maray ninkaan maragyo uu ka mid yahay Maxamed Aadan Iidle oo saarnaa mootadii uu waday marxuumka ayay garsoorku fadhigan ku dhageysteen jigboonta soo istaagna furaa keenana la furiyaa dhibne markaas waxaan dhahay mootada riix xaggee xoolaha yarkii marka gacanta xanuunaysa been hore dagaal soo galay asxaabis dagaalan gacanta xanuunaysa xoolaha gacana xanuunaysa furaa dhib waa baakimaa waa ku siinaa furaha markaas uu dhahay furaa mugsiinaya mootada riix iga xaggee markaas ma aqaan ninkan uu xanaaqsanaa uu caytamay uu soo istaagay inuu liif ku dhufto rabay aniga mootada uu ka dagay gees uu istaagay wadana uu soo noqday mootada soo fadhiistay markuu mootada soo fadhiistay wadana wuxuu dhahay mootada iga riix
soo caayta maayo istaagay qoriga soo istaagay wax xabada ku furay laba xabba ku dhacday laba xabba ku dhacday qoriga baas u dhacay adigu mootada ma saareen aniga gadaal saarnaha markaas xadaa ninka xabadiya ku dhacay markaas uu furiyo soo tuuray mootada u dhacay ay u dhimanay ninkaan oo shahaadana mysteria madax saarnaabo marka hore takay maateen qofka dhint horma u taqaan adiga yarka aniga saaxiibana noro waqana hore u taqaan mootada la saarnaa banaadir ka soo raac marka ceelasha u socdaan ceelasha socotay isna xaq u hooyinaya ceelasha biyaha meeqa saac habeenimo adiga markaas 6 saac loo dhawaa 5 saac iyo xogaayeed oo habeenimo magaalada waa ka bixiseen ma soo gelin waa ka bixinay cashada soo ilo markii uu qaadirabay xaaskiisa cashada oo soo noqon markii isgooska banaadir ka soo gadarabay oo laami ku gada badar ninka marka maxaa ka careysiyo dagaalka keen furaha ma isku dhajiyeen marka la furaha isku dhajin mootada riix bisa ka careysiis oo ka xanaaq mootada furaana uu soo istaagna furaha keeno dhan hore laga siiyay gacanta laga saar inta isla doodeen furaha keeno waa baakima iyo ma baakima riix mootada alaasay dooda ninkii ma taqaana qof ahaan ma taqaana yar ku aqaana geeska fadhiyo geeska fadhiyo adiga ka marqaati ahaan ma cadeey kartid inay xabadaha ninkaas ka baxay inay kas ahaayeen inay kama ahaayeen adi ma cadeey kartid Soomaa kas ahaayeen oo maasanta isgoyska Saybiano bishii Abriil 23keedii 22 ay ka dhamaatay 23 ay ahayd habeen Arbaca ayaa waxa dhacday shil ka dhacay meeshaas shilkaas oo u dhacay yar mootora gadaal uu ka imaaday salbaas uu soo suubiyay mootooyinkii jagboontiga oo ka soo horgala saddexaad inaan ahayna u maleynaa oo asaga mootaga xigtay askarigii jagboontiga ayaa asaga wada hadlay murana ka dhacay labadooda murankii askarigu istaago galay inuu leef garaaco u aaday yarka anu ma ana aqoonin mootoole inuu yahay waaqi wuu degay geeska kale uu degay askarigii kursiga ku soo laabtay ku soo laabashada oo kursiga ku soo aniga qoortan soo dhiibtay geeska gadaalan ka fiirina waxa dhan waa maqlaa ku soo laabashada kursiga ku soo laabtay mootada riixu gacan ay xanuunay buu yiri ee furaha keen aan ku wareejiyo xaga ku dhigo kelmad ay ka mid tahay nacaladu oo askarigii riday asagoo wuu fadhiyay si fadhigii oo ka soo kacay istaagiina uu sagaar xabado ku riday bacdigeed askarigii saas oo u dhaqaaqay furihii oo ka haayay oo ku tuuray dhacalaayna dhalay qaata furihiina saasna uu dhaqaaqay intaas ka dhacda meesha oo marqaati ka ahaaro oo arkay marna maqal ugu marna aragti ugu وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله kadib meesha waxa ka dhacay marxuumkii ma qaadin askarta goobta joogto askar ma qaadin dadkii shacabka ay qaad okay ma u sheegteen askarta ninka dilay inuu ninkan yahay in la qabto u baahan annaga mashruuci meesha aan ku joogno waan qaylinay war ninka qabtaan aya indhahaygu sida ay arkayeen laba askarina geeska taagnaa askarina asaga la sii macaamilay asagoo sii socda askariga kale oo ninka dilaa la sii macaamilay waan qaylinay mashruuc badan ahayn baabuureen u badnayn waan qaylinay war askariga qabtaan hal qofeen nala hadashay ama macnaha anaga wax noo geysatana ma jirto qof anaga nala hadashana ma jirto askarigiina sidii uu ku dhaqaaqay okay askariga markuu falka geystay oo qabta aleedin goobtoo taagan yamaan markaas socdo ku jira ilaa intuu tag ilaa abaara adiga ma dheerayn meesha hadda laga soo kicinayay oo hadda hoolka wadamarka ee bartaan oo kale oo soconayay markaas qabta aan leen aragti ahaan askarta goobta joogtay inay qaban karteen oo ay kortay kareen oo laamaha sharciga iyo hor keeni kareen oo haymaan waa la qaban karay ilaa meesha uu joogo jigboontiga nin joogo waa la qaban karay nin orday oo cagaha ku baxsaday ama xabada kor u ridayo loo dhawaa kari ma haymaan ma xabadana ma ridin dagaalna ma soobin tartoosoo u baxay ishaydu say qabanaysay askariyaaba ka hor yimid dharka booliska wata ka hor yimid ay wada hadleen wada hadalkaas marka inay markii israaceen iyo inay meeshii isla joogeen xaqiiqda ma sixi kara aniga laakiin meeshii saladiga ka dhacday meeshu waa taqaana meel oo dhibaato ka dhacday shacabna waan ahayn waxa qof kasta isla adika ma leeyahay qof kasta waa carraba ka dhacay marka adiga waxaad aragtay askariga inuu askari kale oo booliis oo la macaamilay saana u baxay isla joogeen waa isla joogeen laba askara ama ishaydu intay qabataan ka hadlaaya laba askara meesha joogta labaduba geeskaanay naga xigeen annaga saana nahay isku jagboontiga ninka la yiraahdo Saybiano ninka yaqaan wiilku dhagaxo ku dhintay marxuumka dhintay mootada koobaad oo ahaa
ninkan markii xabaduhu ka dhaceen oo shilku sidaa ku dhacay dhagaxa geeskaanu kala wareegay waa kan dhagaxii saanu ula wareegay tooskiisu u baxay maxkamadda ma sunta si aad sheegtay maxkamadda ka hor sheegtay feelka meesha goobta falkaas ka dhacay waad joogtay Soomaa ha amaya waa joogay mootada marxuumku u saarnaa waxaa tiri salbaas ay ku timid waxay soo istaagtay askariga agtiisa sax way Soomaa ha waxa la yiri dib u noqo way diiday Soomaa meel u noqdaa kaba dambeynba waa cariiray ahayd cariiwa mootadii saan u soo galay marxuumka dhintay ilaahay uu naxariisto dilkiisa lama inkirsana askariga markii xabadaha ka fakanayeen nin fadhiga ka istaagayo ayuu ahay Soomaa ma aniga sidaan aaminsanahay sad aragtay sida adigu aaminsantahay aniga waxaan aaminsanahay ninkaas inuu ka soo dilay waa mahadsantahay masalada ku weydiinayo waxa waaye marag furkaaga waxa ku jiray askariga dilay marxuumka waxa ka hor yimid askari kale ku jiray midaan ku weydiinayo waxay tahay askarigaas ma aha mid hubaysnaay wallahi inuu hubaysnaa iyo inuu soo hubaysnaa ma sixi karaan ku dhaha waaba ku soo gaabshaba laakiin askarta meesha joogto kamid aha all right ma kula tahay in askarigaas oo ku soo baxay shanqarta xabadda dhacday uu soo socdo askariga goorta uu soo socdo soo socodkaas ay iska hortageen ma kula ahayd in askarigaani oo u soo socday halka xabadda ay ka dhacday wallahi waxa kelmadaas waa cilmi qeybna kama hadli karo hadda waxa leedahay soo maahan askariga ka hor yimid askariga iska hortageen ku sheegay ma hubaysneen aragti ma taas ma saxi karabo maxkamaddu ma haysatay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxdarkan ku soo bandhigay muuqaal muujinaya sida dilkan uu dhacay oo ay duubtay maragmadoontada CCTV camera iyo cadeemo kale oo galkan quseeyay halkan waa jakboontiga Seebiyan waaye gudoomiye eedeysane magaradow ama dabla nisa Maxamed Xuseen Hiraabe waa ninka dhagaxa madaxa yar ee meesha ka muuqdo dhagaxa ku gamban waaye fadhiyo waa mootada ugu horeysana waa mootada marxuumka sida uu sheegay garaad mootada marxuumka uu saaran yahay waa meesha marka waxaan soo koobnay waxaan rabnaa murugka meesha uu ka bilowdo iyo qaabku waha halkaas uu fadhiyaa marxuumka dhaqaaqi maayo wax baalkii ma sameeynayo wax ficil laga cabsado ma sameeynayo meesha uu saaran yahay furiin waa laga haystaa lugiin waa istar qaabku uu fadhiyo gudoomiye arag waa jees lugiyo istartay furiin waa ka qaatay oo sheegasho waay intaas ugu ma simin gudoomiye waxa dhici doona meesha arag waa kaas magalo koobintan galno waa hadda xabad ku dhufana mar adi murugiga dhaaf iyo xabad waa isku aadantahay waxa soo baxayo waa yarka inta ka hadlay Maxamed waaye magarado fiiri wali waa taagan halkan qaybtan kale falaartan waa Taylor uu arka caadi uu arka wax meesha ka dhacay waa fiirsana eedeysani halkaas adana aaday halkan soo aaday warnina disho leeyahay intuu ka sheegay wuxuu dhahay macna wuxuu soo qaatay miis wax u yaalay oo bacdaada Taylor waa kaas faaraxna waa kaasa inuu gudoomiye faarax waa kan labada istaagay waa soo baxa marka magarado arag waa soo baxa wuxuu imaan doonaa meesha ay joogan waa la qaban karaa caadi loo qaban karaa lama qaban marxuumku waa la dilay uu dhintay inuu gudoomiye marxuumki Allah u naxariisto xilaa marka ma dhiman dhaawac waa markaan meesha maxaa ka dhacay labadan eedeysanaan rabaa in maxkamadda uu rafaafayo labada eedeysan waxay sameeyeen inuu gudoomiye mas'uuliyad darrada maxaa waa mas'uuliyad darrada ay sameeyeen waxa waaye waajib gudasho la'aan waaye gacmana lagu aaminay dawladda gacmana u dhiibtay Taylor gacanka booliska wata faarax oo hadda xiran wuxuu wataa gacankii oo nabasuguda wata labadooduna jakboontiga isku qoriyay inuu gudoomiye marxuumka hortooda ku dhig baxa wax u gargaaraya ma jeeda gudoomiye oo fiiri meesha wax gargaara ma waxa ku xumsan waa bajaajleey uu hogaaminaya garaad u gargaaray meesha gudoomiye waxyaabaha la yaab kale oo meesha ka dhacay oo kaagsiin daran waxa waaye dhiirigelina ka dhici doonto dhiirigelinta aa marka waxaan rabaa inaan dhiirigelinta tuso eedeysani waa kaas Taylorna waa kan faarax marka inta soo aad eedeysani mujada waa taagay Taylor marka uu taga muxuu sameeyna oo hadlayaan iska baxuu leeyahay garaada meeshan sheegay saasay wada hadlayaan tan waxay ku muujinaysaa mid gudoomiye wuu dhintay wuu baxsan maqlid wuu dhintay wuu baxsan waa tana marxuumku wuu dhintay wuu baxsan ma ahay marxuumki ninkii dilay asaanta iskaga baashaalo oo Taylor u tago faarax u tago iskaga xarakeeyo ayuu baxsana iyadoo muuqaala marka waa shideena marka iyadoo muuqaala meesha ayaa joog inta askari laba taliyo oo meesha taagan waa Taylor iyo faarax
wax ka hadlaya malaha taylor eedaysanaha uu maanayo qoray uu ka qaadi karaa bal uu dhiirigelina iska tago le meesha ma adin isku istaaga mudane gudoomiye maxkamadda ciidamada ilaamaha amniga waxa ka gala qarash eedaysanaha ma gali laheen waqti ma gali laheen cadaaladdan lama sugi laheen muddo 3 bilood iyo maasaada maxaa yeelay haddii ay qaban lahaayeen taylor wuxuu noqon lahaa sargaal shaqadiisa gutay faarax hadduu qaban lahaay wuxuu noqon lahaa sargaal shaqadiisa gutay wuu baxsaday wuxuu dhex maray shabaab wuxuu dhex maray qorigii dowladda u gatay baydhabo tegey maxkamadda ciidamada waaran u jartay ilaahay wuxuu sahlay in la soo qabto muuqaalka markaa fiiriso qorigaaga maadan xakamaynayn qof si oo markaa istaagaysid qoriga saasaa dhuusa qor nin ku raac mu ekid qoriga ani kursiga ku fadhiyay kursiga geeskiisa ugu jiray qorigay markii aan ka inta ay saar hadda ma soo baxsay inta saartay markii ka amaaqay qoriga ninka bajaadla intuu ii taagan yahay lugaha iyo lugta mootada waa saarnaa inbaan nin ani hadda korna arki maahan dadkan igala dhaheeda ma jirto wax ani isugu muwaadin Soomaaliyeed isku ahayn istaagaya qoriga afka hore saas sabarada u haystay dawada aad amaaqay soo qabso istaag mootinkan leerkeedu indhaha ka hayaan aad askartan u sheeg ninkan alkee laga soo xiray hadda guri adeerkay joogad bay dhoo joog laakiin samana aan hadda qof oo arinta waa la galay oo manaasaas ay u soo imaa oo idaan oo imaashidi soo laabano idaan oo soo laabashadaan soo laabay lacagta lii soo diri waayay ilaa bay dhoon aan tagayna qof dhuumanayo masmiilaha ku wareemaan gurigeen aan joogay iyo saldhig waa isku horyaalamna bal meesha waxa ka socdo warbixintan xaaladda arkaysa muuqaalka gudoomiye waa arkay muuqaalkan bal warbixin naga siisay waa shakadan muuqaalkan aniga ninka meesha taagan waa aniga haye magarado ninka uu imaahayaan waa aniga haye yimaada markaas aniga magarado xabadaha ka hor ay dhaceen hatta markuu imaayo xabadaha ka hor ay dhaceen laakiin inuu wax dilay ima sheegin cid kale wax sheegtaa mana qaylada la sheegay markaas ma dhicin ba waa yimid wuxuu yiri adar xabadaha iga fakaday xabadaha ka fakaday xawaan dad ku dhaceen ma yiri haddii dad ku dhaceen ku laaba shaqada saaxiib galabta caawar waa la soo qaliya kaamira soo qaliya shaqada ku laaba ku yiri shaqadiisu aaday gaari marka hore bariyan baarnay ka bacdan baran bugsan baari doono waa arkaa gaariga aan ka faraano oo furayo ninkan oo markaas laamay inta gooy oo container si ag marayo ayaa waxa maqlay ayuu leeyahay nin dhaawac ninku yaa soo aadnay ninku saan uu yahay kursi oo saan ugu fooraa aadaarin ma qaaq dhamal ay male mootada wiilka dhar cadda iyo faaraxan aan markaas ku dhagan oo riixay mootada ana hata la riix ma markaas oo imaahay dambe gaari kabarka aan xirayo kabarka u xiray baaritaan kuma maadaama askari noo suuga askari police in isla baaraan la ogol yahay in hal askari baar lama ogola faarax maadaama uu ninkii mootada aaday ana kabar gaari u xiray waa aaday mootada riixay Cabdirasaaq iyo wiilkii mootada saarnaa ku darnay gargaar caafimaad wili ana waxa ku wiil kalkaal geey isla markiiba gacanka oo kolbaardi ku jiro taruunka oo ka tago baraandirka aad soo qabsaday sida taliya u sheegay oo gacanka gali aad taliya muwaadin meesha lagu dilay ninkii dilay nimanka saddex xaraf oo waan u carray dhinacaas oo ka bax dhinaca u baxay taliya waxa u baxay riyaasay biyaan oo dhinacaas oo u baxsay difar xaggeeda wadada difar waa laacadka goladka isla markiiba waxa gacanka soo galay samakaab wan gacanku ii soo galay samakaab wan waxa dhinacaas goladaas u carray anako taliya laba askari bis ayaa shaqada kaba aan tii kale oo ma aan bursan karin marka aan ogaahayo laamigu waa gooy xil aan bursan karaa tamaam yaa qaaday marxuumka yaa qaaday waxa qaaday wiilkii mooto la saarnay iyo Cabdirasaaq Lilayla oo dhar cad oo bastoolo watay oo abka bawrta galay oo hadda baa heli karto saraakiisha dalaxay oo Cabdirasaaq Lilayla oo waliba dhar cadna tan uu ahay qaaday saaxiibka u dhig xaaladii meeshan ka socotay noo fasirba maxay si wax u socdeen si wax u dhacay madana gudoomiye waa u jeeday xaaladda meesha ka socotay oo leefka waa daawanaya hadeer kulay sidii macnaha checkpoint ka dhacday ama xaaladii meesha ka dhacday meeshan macnaha safiraysa kaamirada safiraysa aniga saan markii horeba u sheegay gaari baan soo baaray kaamirada wad ka arkaysan marayna koolbahan galay koolbaha markaan saa u galay gaariga kalena aan wali baarin gaariga kale ka dambeeyay ayaan xabadaha maqla xabadii meesha ay ka dhaceen si degdeg uma aadin abaan markaan sii fadhiyay ayaa waxaan arkay laba wiil oo mootada gadaal ka saarnada mootada ka soo ordo ka soo baxday oo halkan fadhida oo macnaha mootada sagada ay taagan waan kacay meesha xabaduhu ka dhaceen baan aaday mootadii toos turus waxaan u aaday mootadii waxaan arkay wiilkan marxuumka ama xabaduhu ku dhaceen oo kursiga gacanta saa uga haysta waan sii fiirshay waa shahaadanaya markaa ayada markaasaan anna waxaan iri waxaan u yeeray wiilka dharcadka ah oo wiilka qaadi doona aan u yeeray
waxaan ku idhi cabdirasaaqow kaalay wiilkan ninkan xabada way ku yaalaan mootadan wadada ka riixine xagga markaan u riixinay anu dadkan shacabka iyo waxaas kama warqabo waxaan soo qabanay mooto kale ah soo oroday ninkii baan saar mootadiina waxaan ku baakinay marshabiyoodka marxuumka dhintay mootadii wiilka dharcadkaa baan u dhiibnay anigana waxaan ku soo haray oo aan ku soo haray meeshii waajibaadku iga saarnaa baabuurtii iyo mootooyinka meesha marayay aa waajibaad iga saarnaa mas-uuliyad baa la isaaray mas-uuliyaddii la isaaray inay sidii la ii saaray aan u guto baan uga soo haray marxuumkii iyo ama ninkii dhaawac ahaa markaasna gargaar baa u fidinay oo wiilkii dharcadkaa shaqadana la lahaa baan usii dhibnay oo baabuur taableedka gelinayay midna guddoomiye macnaha annaga mas-uuliyad baana ninkaas kale uu baxay ninkaana ninka baxsaday gacanta gacan ku dhiglaha maxay u celi weyseen midna guddoomiye ninka anigu horta ma arag marka uu xabadaha riday inuu xabadaha isagu riday oo meesha fadhiyay oo mootadan ninkan dhaawacay niyadeyda macnaha way ku soo dhacday oo waan ogsoona sababtoo anina isaga aan mootooyinkan ma baarin meeshana ma fadhin waxa uu heliyay labada nin oo baabuurta baaraysay iyo wiilka dharcadka ah oo shaqadiisuba tahay inuu taableedka baabuurta geliyo bas oo halkaa fadhiyay koolbaha geeskiisa waa u jeeda kaamada uga jeeda markaan ogaaday inuu ninkan xabadaha ku dhuftay anuu ninkan laba indhood daba masa markaan mootada u sii socday yaa ilaa weeyay yuu soo daba mara xagu ii soo daba anna mootadii ma toos ugu daba mara laba indhood oo dambe ma saarin hadii aan arki lahaa oo yacni aan ninkaas isagoo la taagan aan u imaan lahaa oon isku dayo ninkan inaan qabto waxaa dhici karta sida kaamiradan looga sheegay ninkan macnaha ugu dhaqaaqay wuu tagay xagga wuxuu aaday sandaqad oo xagga naga ah aan isku dayo inaan qabto ama aan qabanno wuxuu samayn karaa dagaal waxaa ka imaan kara meesha isku dhac ciidan saddex maada ayaan ka dhaxlaynaa aniga naftaydii uu dilo naftaydii uu dilo oo aniga naftayda gooyo inaan isaga dilo in makhluuqii meesha marayay oo baabuur iyo mootooyin iyo dad lugeynayaba lahaa ay khasaarihii meesha ka dhacay mid ka weyn u soo gaaro hadduu aniga i dilo naftayda anaa halligay hadduu aan isaga dilana waxaa weeye dhibka maanta aan meesha inta aan u taaganahay mid ka badan oo ka weyn ayaa imaan lahaa meeshaan maanta u taagnaan lahaa mudana guddoomiye iyo adoo waajibkaaga gudanaya ma dhibka anoo waajibkayga gudanaya oo amarkii la isiiyey wuxuu ahaa iyo mas-uuliyaddii la isaaray inaan baabuurtaas baaro muwaadinkan aan baabuurta u baaro magaalada gelaya aan waajibkooda ka guto aan baaro aan sii daayo mas-uuliyad kale layma saarin dhamme cabdicasiis cismaan faarax cabdiyare ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in debla nisa maxamed xuseen hiraawo magaradow ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho oo ah qisaasta marxuumka halka debla bool maxamed nuur cabdi taylor iyo debla nisa faarax qadar maxamed uu codsaday in lagu xukumo qodobadii ay ku soo eedeeyeen mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koowaad maxamed xuseen hiraabe magaradow waxaan ku soo eedeennay namber 1 inuu dil geystay dil bareer ah kadibna uu sameeyey inuu goobtii ka baxsado kadibna uu sameeyey in uusan caawimaad u fidin marxuumkii oo markaas dhaawac ah oo goobta ku dilay kadibna uu sameeyey inuu kooxda khawaarijta al-shabaab dhex maro kadibna hubkii dowladda ay siisay oo canshuurta bajaajilayaasha laga gaday in uu haddana gatay intaas oo eeda ayaan ku soo eedeynay eedeysanuhu dhammaantood wuu qirsan yahay laakiin wuxuu qirsanaya waa dilka kaska ah dilka inuu kas yahay mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda hor keennay maxamed aadan iidle cali nani wuxuu goobtan ka sheegay inuu bajaajta saarnaa qofka ugu saxsan ee waqtigaas ka warbixin kara waxyaabaha isdhaafsadeen uu ahaa mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh nani wuxuu sheegay in furo laga qaaday eedeysanaha isagoo la leeyahay salbaash ayaa soo samaysay seed qaldanaa soo martay seedka waqtiga hadda arkeen ma qaldana caadi u toosan yihin wuxuu haddana kusii qabsaday mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh in isla waqtigaas leerkii aaway ugu dhahay kabacdina furay uu ka qaatay kabacdina uu yidhi mootada riix waa intaas ijraamo ama ciqaab waaye oo u geysanayo muwaadin canshuur bixiye ah waddankiisa ku kalsoon bajaajna ku dhex wado mudane guddoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh
eedaysanaha koowaad markuu intaas sameeyey kadib ayuu inta dilay naclada kugu taala inta dhahay ayuu haddana asoo marxuumkii xilliga gargaar u baahan yahay nacladii ku dhashay wasta dhahay wuxuu ku dhuftay sheeg wuxuu ku dhuftay furiyo ku dhuftay isagoo caayaayo nacladna ku ridaayo taas marka waxay ku cadeynaysaa mas'uuliyad darrada iyo arxam darrada masaakiinkaas inta la dilay asoo haddana dhaawaca warkaas uu sii maqlaayo kuna geeriyoodo asoo warkaas maqlaayo mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh maxkamadda waxaan hor keenay garaad xirsi maxamed oo meeshaan ka caddeeyey kiiskaas qaabku u ahaa kuna tilmaamay mid kas ah oo la kac ah oo uu eedaysanuhu si kas ah uu u dilay masaakiinkaas marxuumka ah waxaan maxkamadda la wadaagnay warqadda caddeynta dhimashada ah oo lagu tilmaamay isbitaalkuna uu ku tilmaamay inuu u dhintay dhiigbax maxaa yeelay 30 daqiiqo ma saad wuxuu yaala goobtaas garaad wuxuu sheegay in intay xatay arursadeen ay ku qeelsheen wax la qaadan ay waayeen mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh goobta uu falku ka dhacayna waa soo bandhignay oo inta bajaaj oo taagneed waqtigaas xabado meel lagu dhex ridi karan aysan ahayn waa soo bandhignay marxuumkiina qorigii inuu cunay isagaa qiraal leh maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeynay eedeysanaha koowaad lunsasho hanti fakasho ama baxshasho iyo dil bareer ah 434 ah number 2 in hantidii dawladda ay ka magto maxaa yeelay hantida dawladda waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed iska leh iskama la qoriga waxaa la dhacay uu weerdiyay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ka magto number 2 waxaan ka codsanaynaa inay ku xukunto aayaadka Qur'aanka Kariimka ah qolkii eebe aayadda 178 suuratul baqara aayadda 45 suuratul maa'id oo dhamaantood sheegayaan qofkii qof dila in asna loo dilo loo qisaaso iyadoo laga cararaayo mudane gudoomiye in noocaas muwaadin masaakiin asaas loo dilo leer iyo wax lamida loo dilo safa soo qaladay ma ahan wax loo dili karna ma ahan wax la aqbali karna ma ahan wax bariyahan batana waay mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh qodobka ugu weyn oo ku soo eedeynayna waa 434 waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa iyadoo dhageysatay shaahidiin cadlin marqaatiyaasha inta soo bandhignay in eedeysanaha koowaad oo ah maxamed xuseen hiraabe ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum axmed maxamed macalin saakiin bajaajla ah oo asaga nafta dhaafi xanuunkii uu marsiiyey in la marsiiyo dhibtii uu marsiiyey in la dhimarsiiyo dilna ay ku xukunto maxkamadda number 2 eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad mudane gudoomiye waxaan ku soo eedeynay kaalmeen fakasho ma dhacday caawimaad fidin la'aan ma dhacday iyo in goobta faldambiyeedku inuu ka baxsaday ay ku kaalmeeyaan eedeysanaha koowaad maxamed xuseen hiraabe ma dhacda labada eedeysane waxay sameeyeen mas'uuliyad darro waajib gudasho la'aan marxuumkii hortooda ayuu ku dhig baxay mana qaadin eedeysanaha oo dhibkii geystayna ma qaban waxa kaaga sii daran in ay ku dhiirigeliyeen in uu baxsado eedeysana Taylor mudane gudoomiye soo bandhignay qaabka waa la taagnaa caadi ula taagnaa wuxuu u sheegayay inuu goobtan ka baxsado si aysan cadaaladda dhaqso u marin mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh arrinta baxsashada ah waa arrin muddooyinkan soo korortay qofka qof iska dilaayo waa baxsaa lagu leeyahay waana mas'uuliyad darro waxaa kaaga daran waxay gaartay ilaa madaxda qaranka ay ka hadlaan dhahaanna wuu dhintay wuu baxsaday waa sharaxay wuu dhintay wuu baxsaday madaxda qaranka waxay kala jeedaan qofkii dhintaa baxsada maaha qofkii dhintay kii dilay aan inta iska xarakay u baxsada waay mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh muuqaalka aan soo bandhignay labada eedeysan hortooda ayuu ku xarakeynayaa isagoo qorigiis tirtiranayo garaadna waa sheegay oo meesha goobjoog ah mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh markay intaas ay gaartay dhibka laga maray in la soo qabto eedeysanaha oo cadaaladda maanta uu marone wax laga maray maxkamadduna ka warqabtaa xafiiska xeerlaalintana uu ogyahay maadaama waaranka ay ga jareen mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh eedeysanaha waxaa laga soo qabtay Baydhabo
masaafo ahaan waa dareemi kartaa mid gudoomiye haddii waajibkoodu guda lahaayeen labada eedaysane maanta intay imaan lahaayeen ayaga ayaa waxay ka noqon lahaayeen marag iyo warbixin dhiibe maxkamaddana halkaas waxay ku sii lahayd ay ku tali lahayd in la darajo la siiyo maxaa yeele waxay guteen waajib diini ah waajib qaran waajib shaqo laakiin beddelkeeday sameeyeen waajib darray sameeyeen mas-uuliyad darray sameeyeen waxay sameeyeen waxa lama arag lama maqal ah juhdiga dowladda ka galay ayaga soo koobi lahay inay soo koobaan aan qoryaal loogu dhiibo oo gacmada loogu dhiibo oo mas-uul looga dhigi ma sameeyna marka eedaysanayaashaas waxaan ku soo eedaynay mid gudoomiyey 306 oo kaalmeen fakashaa iyo 450 oo inay caawimaad xataa u fidin marxuumka meeshuu yiilay lama qaadin ma taaban eedaysaniin ma qaban maxay marka gacmaha ka wataan foonaya maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay 001 hebel soo qabo halkaas dilaa ka dhacay degdeg la soo gaaro waxaasaa loogu dhiibo kama dhicin mid gudoomiye meeshaas marka maxkamadda waxaa ka codsanaynaa si u noqoto arrin xiran oo qad cagaaran ah in nin meesha loogu dhiibay taliye ama gacan loo dhiibay ee meesha ka talinaayo ama taliye unug ka ah ama wakiil taliye unug ah ama goobtaas waqtigaas mas-uul ka ah inuu inta qof talug duldul iska baxsada saysan u dhicin maxkamadda waxaa ka codsanaynaa xabsiga ugu adag ee dhigayaan qodobadaas inay ku xukunto maxkamadda maasantaha qareenka eedaysanaha koowaad abuukaata shalambood oo dilkan ku sifeeyey mid kama ah ayaa u codsaday muwakilkiisa inay maxkamaddu ku xukunto magta marxuumka halka abuukaata salaad oo muwakilintiisu u codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya maxkamadda sharafta leh maanta maxkamadda horteedaan taaganahay maxamed waxaa loo jeediyey eeddii markii loo akhriyey wuxuu ku jawaabay eeddaas dood sharciyan ka qabaa doodiisii sharci waa jeediyey wuxuu sheegay dilka meesha ka dhacay qaabka u dhacay wuxuu ka ahaa shaqada uu hay maxkamadda sharafta leh maxamed waa askari qaran gudanaayey shaqadiisii waajibka aska saarnaay oo goobtiisii shaqa ahayd ma ka tegin nin goobtii shaqa ahayd gardarra uu baxay meel tegay wax dili maaha waxaa loo yimiday waddadii uu taagnaa wadda qaldan ayuu soo galay yidhi muwakkilka ninka dhintay oo marxuumka ilaahay u naxariisto sidii marqaatiyaalka qaarkood ay sheegeen maxaa yeelay dad badan ay xaq lahaa laakiin qofka hadduu waqtigiisii dhammaaday meel geesaas soo maray albaabkii dadkaas soo hormaray muwakkilkayga wuxuu sheegay inuu ka shakiyey qaabka meeshaas u soo galan ay ahayd qaab qaldan sidaas darteedna furaha uu qaaday mana ahayn dil asu qasday oo kas ah oo marxuumkaas dhantii soo la jeeday ma ahayn si maxkamadda horteedaas ka sheegay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay soo qoreen eedaas oo ku taariikhaysan 22 bishii 7 2025 muwakkilkaygana number 1 uu ka yahay waxaa lagu soo eedeeyay aayadda 178 suuratul baqara iyo aayadda 45 suuratul maa'ida oo ah wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binnafs xafiiska waxaa kala soo raaciyay 186 oo ah hubkii qaranka oo ku maqan muwakkilkayga waxaa kala ku qoran eedda 305 oo ah fakasho amba ka baxsasho goobtii iyo 434 oo dil bareer ah meesha maanta warka muwakkilkayga uu ka sheegay qiraalkii garsooraha maxkamadda horteeda oo ka baxshay iyo maanta intii as sheegay horta waa samiin wax ka bedelan oo laablaab ma keenin waxaa kala xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey marqaatiyaal 2 marqaati oo lagu kala magacaabo maxamed aadan iidle iyo garaad labada qof su'aalaha aan weydiiyey maxamed uu horeeyay waa waxoogaa ma cadaynan si sax ah oo dil bareer ah aas u dhacay ma cadaynin markii dambe waxoogaa waxa uu maleha waa ku sii adkaatay marka cadeyntiisa oo saxda ah ma loo qaadan karo maxay hadalkiisa nafteeda waxa ku jirtay ninka walaalaan ahayn waxaan u socon ceelish marka taas nafteeda marqaati
oo sax ah loo maqaada karo ninka labaad maraga labaad ma waafaqsana 184 sababtoo ah maxaa yeelay nin su'aasha aan weydiiyey ka xanaaq waay qofka marag waxaas noqon karaa meesha cadaadis ma jiro dhib ma jiro inuu xanaaqiisii ka soo hormaro maxaa yeelay meesha waxay ku tusee bajaaj leeyahay isla ahayn waxoogaa xurgufta askarta iyo bajaaj ka dhaxaysane waa la ogyahay marka loo maqaada karo marqaati dhab ah oo maanta aayadda 178 ee suuratul baqara iyo aayadda 45 oo muwakkilkayga si sabab ah oo dhab ah loo maqaada karo waxaa meesha ka muuqato dulduleel kale oo ah shaqadii iyo waa ka tegi xafiiska wuxuu sheegay inuu shabaab dhaxmaray shabaab la dhaxmaro ma ku soo eedaynay qodob ma soo saaran oo baxsashada meesha ka baxay oo shabaab as dhaxmaray nafteeda eed ma uu jirto laakiin afku ka sheegay wuxuu kaloo sheegay 305 xeerka maxkamaddana waa haysaa xafiiskana waa helaa waxaa fiicnaa laheeday in la akhriyo sababtoo ah 305 wuxuu sheegaa nin maxbuus ah oo la qabtay xeran kadib baxsaday maxbuus la soo xiray oo ay ciidamada soo xireen amba booliisku uu xiray oo baxsaday ma jiro marka 305 ma soo gelayo meeshuu ku baxaa ninkan nin dhibkii waa ka dhacay waa qirsan yahay laakiin nin xer ma leh yaa xiray hadda qof xirta ma leh waxba u geystay waa iska tegi baxsasha maaha marka waxaa soo haray 474 hore uu sheegay 186 wuxuu ii sheegay muwakkilkayga aniga ma cadday karo laakiin wuxuu ii sheegay qorigii asiga ahaa nawadoonkiisii in loo xiray lana guday wax xuquuq ah oo qori xagiis ah maanta inay iska jirin waa ii sheegay maxkamadda sharafta leh maadaama aan doodii ku dheeraaday aan waqtina u nahayo saakin aan nimid maxkamadda sharafta leh waxa uu gudbaa 119 codsigayga koowaad waxa waaye number 1 muwakkilkayga dilka ka dhacay qaabka asiga uu u sheegay oo kaliya inay maxkamadda qaadato ayna u bedesho 445 oo ah dil kama ah 286 oo ah hubkii la gaday wuxuu ii sheegay in la xaqiijiyo oo ah hubkaas inaan asiga lagu lahayn dawladdana waxeeda la siiyey oo bera iska noqdo taasna xaqiijinteeda maxkamadda ka codsana waxaa soo haray 305 wax iska galay nin xeri oo iska fakaday amba xaran dawladeedoo la geeyay ayadana ma jirto maxkamadda sharafta leh inay ka baryeesho ayaan codsanaa asigana qodobkaas eedda xafiiska xeer ilaalintana ay naga baryeesho dilkaasna ay u bedesho maadaaman qiraal is yahay 445 maxkamadda sharafta leh way mahadsan tahay mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh haddaan isku soo duubo eedda loo haysto difaaceeda labada askari ee la kala yiraahdo maxamed nuur iyo faarax qadar waxaa lagu eedeynayaa kaalmeyn fakasho in ay kaalmeeyeen oo ay caawiyeen eedeysanaha koowaad arrintaas haddaan maxkamadda si sharciga ugu faahfaahiyo waxay noqonaysaa mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh labadan askari waa laba askari oo checkpointigaas ku qoraay xilliga uu dhacayay maaragtay shilka ama dhimashada waxay ahaayeen laba askari oo on duty ah oo waajib gudanayay waxaa sii raaco labadaas askari taliya unugooda in isagoo waajibkii la gudanayo in uu baxay iyagana u dhiibay sida hadda eedda xeer ilaalinta loo dhigay oo ah in loo dhiibay gacanadii oo ay communication kala sameynayeen askarta kale taliya unugaasna isagoo waqtigiisii maaragtay gudashada waajibka sharci ama heeganka uu ku jiray baxay casho aaday gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan ognahay si kooban inta askari uniform ah oo waajib ama heegan ku jiro dishbiliin ahaan ciidanka waxaa mamnuuc ka ah
in qof shaqadiisa uga tago waxyaabo haddii shaqadiisa oo ka tago keeni kara dhibka maanta yaallo kale guddoomiye marka waxaan rabaa inaan usoo laabto kaalmeyn fakasho guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh nimankaa la yidhaahdo maxamed nuur iyo faarax markii eedeysanaha koowaad oo marxuumka xabadda ay uga dhacday waxay ku jireen sida hadda aan ka arkaynay kaamirada ama c c kaamirada xafiiska uu nala wadaagay waxaan ka aragnay c c kaamirada labada eedeysane ee aan qareenka u ahay dhammaantood in ay ku jireen howlaha sharcigaa loo igmaday ee ah fatashaadda iyo hubinta gawaarida soo gelayda jackpointigaas iyo kuwa kaloo ka baxaayo halkaas guddoomiye horta waxaa ka muuqato in ay hore uga sii warqabin rasaasti dhacday in qof dhintay in rasaasta midkood oo riday qaafilay ka ahaayeen balse amuurta hadda loo soo taagay maxkamadda waxay tahay waxay ku kaalmeeyeen eedeysanaha koowaad fakasho inuu ka baxsado sharciga horta qodobkan guddoomiye iyo mowduuciisa way kala duwan yihiin qodobkan 306 wuxuu tilmaamayaa in fakasho ama lagu kaalmeeyo qof sharciga u xiran ama dowladda dambiilo u ah laakiin askariga koowaad ama eedeysanaha koowaad xilligaas wuxuu ahay eedeysane ammaanka ama hawsha socoto jackpointiga la waday labada kale ka sokow dhacdada meesha waxaa la keenay oo la yiri lama caawin marxuumkii bajaajlaha ahay lama caawin guddoomiye labada askari ma joogin askar kale oo jackpointiga kula sugan oo haddii iyagu ay sameeyaan firaaq koox kale intay timaado firaaqaas ay buuxi karto meesha hadda waxaan ka arkaynay baabuur saarufa oo aan weli la baarin ka basoo qaad hadday ku mashquuli lahaayeen maxamed nuur iyo faarax qadar hadday ku mashquuli lahaayeen oo ay noqon lahaayeen beddelkii ay ammaanka sugi lahaayeen ay noqon lahaayeen dad oo medical assistant ah oo emergency u fidiyo marxuumka dhintay soo ma dhici karin baabuurkaas aan weli la fatishin oo la ogeyn waxa ku jiro intuu soo gudbo oo dhibaato geysto oo ka dhalato hawshii ayaga ay ku mashquuleen howlka weyn waa ka imaan karta waxay ku shaqaynayeen amar in ay u fidiyaan kaalmo caafimaad ayaa waxay kala weynaatay in hawshii looga tegay oo u dayacay taliyo unugooda in ay sidooda u gutaan balse ay u dhaafaan dadka kale ee shaarica marayay in ay fidiyaan gargaar caafimaad mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh markii loo soo laabto dhanka kale ee kaalmeyn fakasho ka basoo qaad haddii eedeysanaha koowaad sida la sheegay oo ku hubaysnaay qore AK47 ah oo ay la weheliyaan boosashkii maaragtay oo isaga difaaci lahay haddii labadooda ay isku jawaabi lahaayeen xabado oo ku tegi lahay marxuumka koowaad macnaha maanta lama dhihi laheen waxaa la keeni lahay ayagoo ku eedeysan in ay dileen marxuum carajiif la ah oo askari la shaqaynaya loo keeni lahay wax badanay nimankaas ka baaqsadeen aan dhihi karaa guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh in ayna u bareerin ninkaas hubka wato maslaxa ku jirta guddoomiye maslaxadana ku jirtay waxay ahayd in khasaare intaas ka badan ay soo hooyan dhibkuna uu noqdo mid xadidan kuna eg intii uu geystay oo keliya haddii maxamed ninka la dhaho nuur oo maskaxdiisa ka keeni lahay ama ka go'aansan lahay inuu ka daba tago eedeysanaha koowaad meeshaas caqliga aadanaha wuxuu keenaa in la israsaaseeyo khasaare ka badan khasaarihii dhacay inuu meeshaas ka yimaado marka lama dhihi karo mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh labadaas askari si bareera ayay ninkaas odagaa u daayeen ma dhihi karaan lama dhihi karo waxaa kaloo la dhihi karin ayagoo u jeeda qof dhibano ah ayay hawshooda ka raacdeena lama dhihi karin because waxaa ka weynaay meesha ay taagan yihiin maxdarka ay taagnaayeen iyo xaaladda ay ku sugnaayeen
ayaa waxay ka dareed in qof bajaaj saaran oo dhib gaaray inay kulligood ku mashquulaan. mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, labadaas askari waa laba askari oo amarkii taliyahooda sida ugu tegay u fuliyey. hadday howl kale ka aadi lahaayeen oo amarkaas amara ahayn ay qaado lahaayeen, natiijo ka duwan maanta oo ka badan hal dhib ayaa soo bixi lahaa. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in dadkaas labada ah aan qareenka u ahay shaqadooday ku taagnaayeen in xorriyaddooda loo celiyo, amarkii ay ku taagnaayeen shilkaas ka yimidna maaragtay looga abaalmariyo. waa dad amarka ku taagan ee qaatay. dadka noocaan oo kale ah waxayna soo xasuusinayaan guddoomiye ciidamadii mongool armiga ayayna soo xasuusinayaan guddoomiye, iyo ciidamadii kale Japan ee 1945. waqti aan jaraa'id akhrinayo waxaa ku qoreed askari amar oo siiyey maaragtay taliyihiisa oo dagaalkii labaad sida amar loo siiyey 1970 Filibiin laga helay asoo weli hood ku jira oo aaminsan in World War II weli oo socdo. marka dadkaas waxay soo xasuusiyeen taariikhdaas yar. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in maaragtay waa loo gafaan dhihi karaa, waana lagu kahdoomay in loo celiyo xorriyaddooda. wabilaahi tawfiiq. maxkamaddu way mahadsan tahay. maxkamaddu maxaa ka codsanay? maxkamaddu maxaa ka codsanaa in aniga qofkaas muwaadinkaas oo meel kaas aan u dilin oo dib wax iga fiiriso. maxkamadda waxaan ka codsaa mudane guddoomiye, waxaan ka codsaa maadaama shaqadayda waajib aan ku jiray, wax dambina aan geysan ka horna aan ii sheegnin in ninka dhaawac geysto markuu soo agstaago uu ii sheegin. maxkamadda waxaan ka codsaa xorriyaddeena dib isiyo shaqadiina ifsaacdo. maxkamadda waxaan ka codsanayaa mudane guddoomiye, maadaama aan waajibaadkii la isaaray iyo amarkii la ii faray aan sidii la ii faray aan u gudanahayey, wax dembina aanan gelin, ninna aanan dilin, dhacna aanan geysan, dilna aanan geysan, kufsina aanan geysan, in ay xorriyaddeydii dib ii siiso si aan dib ugu guto waajibaadkii qaranka. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray. cabdiraxmaan gacan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.